Alleen hikuma bogsiiso hamigu warwarka ma biyo halaacal wax kuma keene adduun hawli kama dhammaatee cirif alle cirifku ka joogo uu ka daalacdo amaba uu ka dheehdo. Zahra soo dhawow bal ka waran suxufigii tegay xeebta Soomaaliya Muqdisho ee Jazeera isla markaana kilibka yar oo iska soo duubay baraha bulshada qabsaday asigoo markaasi ka sheekeynayay caruurta iyo xaasaska iyo qoysaska Soomaaliyeed bal ka waran arrintaas sidee u aragtay شكري وادوهاي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وادوهاي هورتا وان أركي نينكن أنا هورتا ما قرانيو إنه صحفي هي إنك لكن إنه تورستي هاي بانو ملاييني حيبتا دور كليب وصوص صاري wax badan uu soo saaray maanta asagoo biyihii ku dhex jira xataa wuu soo saaray meelo badan buu magaalada ka tustay positive tahay inuu Brazilian yahan baan u malaynayaa Brazil uu ka yimid waddanka ay baan u malaynayaa kilibkii ugu horreysay aan arkay horta Soomaalida waxaa la ogaaday inay yihiin dad ooralaho markiiba maaragtay ama dad aad iyo aad u isticmaalo social mediaha oo aad ugu jiro oo mar alla markii uu rabo qofku maaragtay inuu soo caanbaxo ama uu rabo kaman badan Soomaalida ayay soo qaataan hadda laakiin waxaa jiray kilib uu Soomaalida uu leeyahay saddex wax oo Soomaali ka mid ah marka saddexdaa mid oo Soomaali ka mid ah wuxuu yiri waxa waaye xeebta ugu dheer bay leedahay Afrika waxay leedahay mataqaanaa shabeel ama leopard geedkan la yidhaahdo noun buu yiri waxay ku caan yihiin buu yiri leopardka buu yiri haweenkooda fertility rate-ka ama maxaan ku dhahaa xagga maaragtay production maxaan ku dhahaa wax soo saarka si baraha bulshada aad ayuu u qabsaday aad baa loo hadalhayay marka muuqaalkaas uu iska soo duubay dalxiisahaasi ama wariyahaasi haye marka dadku wax badan bay u qoreen commenka ku qoreen oo waxay dhahayeen faraska maxaan ku dhahaayeen shabeelka ma aha waxa annaka nala ku yaqaanaa geelaa nala ku yaqaanaa ani laftigayga waa ku darsada waxaan ku yidhi waryaa maxaad u sheegi weyda geelayagii baan ku yidhi maaragtay geelayagii beeyey baan ku yidhi maaragta laakiin anigu mid baan commonka ku darsaday oo aan meel kale aan wax ka eegay waana waxa gaaladu mararka qaarkood iskama tagaan meel waxay ka socdaanna ma taqaanid waxbay u socdaan markay meelaha tagayaan sahan bay u tagaan way isqarinayaan way isqariyaan ha marka barnaamijkaas oo kale cover waaye ma la dhihi karaa wax kastaba waa dhihi kartaa way u tagaan marka fertility rate-ka ilmaha Soomaalida naagta intay dhasho buu sheegay aad waan ogaa had iyo jeer meelaha waa lagu soo qori jiray fertility rate-ka mataqaanaa yacni productionka xagga ilmaha dhalitaankooda kuxamahooda waa sareeyaan bala laakiin xisaabtii afartii haweena bal xisaabtii noo sheego isku dhufto oo soo gudbiye dhiki ها wuxuu yiri lix ilmood bay average-ka dhexdhexaadkoodu ay dhalaan ilmaha waa lix buu yiri marka maadaama ukumtooda wax soo saarkooda aad u sarreyso laakiin waxaa laga yaabaa gaalada program baa jira mar dhan aan kula qaybsan doona arkay gaalada waxaa laga yaabaa marka ay rabaan meelo badan bay u maraan hadda yaraynta bini'aadanka dadka ama corona ha u maraan oo dadka corona ha u sameeyaan ama maxaan ku dhahaa aids dadka ha u suubiyaan ha ku ridaan ama maxaan ku dhahaa yacnihii hadda ha u mariyaan hadda aad iyo aad waxa u socdaa cabasho badan oo Afrika la rabo in xataa caddaan iyo cid kasta ka hadala Afrika in ilmaha laga yareeyo marka yacnihii suuq geyn waxay noqon kartaa okay ilmo badan bay dhalaan marka waddankii ilmo badan dhala waxaa loo suuq geynayaa daawooyinka ama waxa ilmaha la isaga celiyo soo ma fahmeen
anigu waxaan aan kaa dhex galo mis dhihi kartaa soomaali way u baahan tahay inay ilmaha kala koriyaan ilmo badanaa dayacan qaarkood so isma dhihi kartid haddii haweeneyda iyo maxaa la yidhahdaa ninkeeda ay ku heshiiyaan ilmaha ay kala korsadaan inte laga yaabay gabadha sanad kasta inay dhasho maasha allah haddii ay overagekeedu saas sida la sheega ama la ogyahay saas yahay ilmaha kala koriskooda waa fiican yahay inkastoo qaab badan oo loo kala koriyaa jirto oo qaabka loo kala koriyaana ay tahay iban xataa iyadoo aan kiniini cunin bay gabadha ilmaha ay kala dheerayn kartaa oo qaabo badan baa jiro oo aanan hadkaan rabinin inaan dhex galin oo without kiniin ah kiniinka laftigiisu ogow wuxuu leeyahay side effected oo dumarka cudurro badan buu u keenaa kuwan xataa waxa la xiro qaar badan buu ku dhashaa laakiin waxaa la leeyahay xataa alaabtaasaaba alaab loogu soo daraa specifically afrikaanka la leeyahay oo loo soo dhexgeliyaa oo ah xagga ilma yarayskoo gabadha markay qaadato ukumaheeda hoos u dhigayso productionka yaraynaysaa la leeyahay ilmaha marka kala koriskooda anaka soomaaliya markaan joognay yacnihii waxa waaye dee dadka intooda badan waxaan ku waaye yacnihii soomaalidu ilma waaba waa u baahan tahay inay dhasho waa dad la dilo la gumaado iyaguna isdila marka ilmaheena inaa is yarayno oo mataqaana aan baaba'no ma fiicna gabadhu intay dhali karta ha dhasho anigu baan dhihi lahaa laakiin dee ha kala koriso ilma ilaa 6 iyo maaragta kala korsan oo 2 sano iyo ay u dhexayso ha samayso waa tahay gabadhii ma isdhihi kartaa sanad kasta hadday dhasho caafimaadkeedii fitamiinadeedii waxyaabo culeysyo badan ayaa gabadhii hooyada soo wajihi kara oo runtii cid uma bacdhigaysa jirin sidaan ognahay horta ma qurbaha mise dhulkii dhulkii gabadhu haddii ay waxaysato maaragtay ay waxaysato waa fiican tahay inay dhasho is okay ilmihii waa lala haynaa waa lala korinayaa maaragtay inay dhasho waa fiican tahay ha kala dheeraysato laakiin waa qof fursad haysata ay ilmihii mataqaanaa lala haynaayo oo aan ilmihii had iyo jeer mataqaanaa laakiin qurbaha way adag tahay wax kalena ma adkaysiinayaan qurbaha waxaa adkaysiinaya baahida ilmaha ay leeyihiin ayaa ka ah ilaalintooda iyo baahidoodii baa aad u sarraysa ilgeyntoodii xaggageynkeeda xaggagee waxbadista xaggagee magaciisii waxaas oo dhan baa ku fara badan meesha ilmaha xagga joogaa soomaaliya joogaa subaxii aroortii sidii aan ahaan jirnoo kaleu iskuul aadayaa wuxuu ka soo baxayaa kowda maalinimo wuu seexanayaa galabtii buu quraan uu dhiganaya ma fahamta ka waran carruurta dugsiyada laysaga diro iyagoo 2 jir ciyaalada waaweyn raacaan iyagoo macallinkii la baarin xaaladiisii caafimaad carruurta sidoo la dhaqmayo saacadaha badan uu haysto mararka qaar tacadiyaa ka dhaca goobaha waxbarashada laakiin taas ogow taas khayr mas-uulnimaday ka mid tahay marka hala dhala maxaad u leedahay hala iska dhala gabadhu intay dhalta taas iyo dhalashada dhalinta maxaa isaga kama hor imaanaysa maya taa iyo dhalinka hadda maxaa isaga xiran ilmahaagii inaad dugsi geysato meeshaad geynaysid ogaato oo aad safetygiisii iyo nabadgelyadiisii ogaato ma dhal bay shaqo ku leedahay may dabcan ilmihii hooyadii ma hay karto dugsiga waxaan ogahay inay u raaciyaan inay waqti yar walaalahiis iyo walaaladood la soo joogaan oo dugsiga xoogaa yar ilmaha ay kaga dhuumanayaan halkaa lagu soo haynayo qayladooda buuqoodoo kale haddaan hooyadu markaa samayn karinin dee oo dhibaato caafimaad hayso qayladii iyo buuq ilmaha ku haayaan dee markaas yaba dhalinba laakiin haddii ay rabto ilmaheedii inay kaxayso hadday waxbarasho u dirayso oo wax soo baranayo waa gaar laakiin hadday rabto inay dugsigii ka dhigto nursery meel ilmaha lagu hayo asiili lagu hayo ilmaha oo aysan la socon xataa hadday geenayso waxay samayn kartaa yuu yahay qofkaan ilmaha u geysanaysa lacagiga ma ku siiyaan extra oo dheeraad ah in ilmihii loo haayo oo ilmihaagii ciddaad ku haynaysa ma ogtahay mideeda kale waalidiinta waxay samayn karaa intay isu tagtagaan bay meela samaysan karaa ilmaha ay ku haystaan oo ay geeyaan oo ay kaxeeyaan oo meel kasta geeyaan inta wax isku dardarsadaan aysan samayn karin dee kuwa dariska hodhan ha israacaanoo maalinta shaqada iska daayaan galbihii ilmahooda ha kaxaystaan haddii kale ha ogaadaan cidda ay ilmahooda u geysanayaan oo ha iska baaraan
laakiin ilmihii aakhira ilmaha in ilmahaas aniga in la dhaho ilmaha gaal inta anigu nafsiyan aniga saara iska hadlaaya ilmo badan ma jeclayn inaan dhalo qofku dadku isku mid maaha laakiin waxaan ka wadaa ilmaha in la dhaho lama dhalaayo oo dee haddana mataqaanaa lagana badbadiyo lama dhalaayo in la dhahona ma fiicna ilmihii ha la dhalo laakiin qaab habaysan ha loo dhalo qaab caqligu ku jiro ha loo dhalo qaab caqligu hana loo korsado hana la isla korsado ha loo dhalo hana la isla korsado tan kale waxa waaye meesha iyadana ku jirta waxa waaye ilmihii yacnihii waxa weeyaan yacni waxa waaye marka ilmaha la isla korsanaayo aabbaha iyo hooyuhu ay ilmaha wada korsanayaan yacnihii way ka dhibkii wuu ka yaraanayaa hooyadii mideeda kale haddii aabbuhu uu yahay nin oo gurigii cunto keenayo oo soo shaqaynayo hooyadii ilmihii way hayn kartaa oo suuqii ay fariisanaysay ama wixii ay ka ganacsanaysay bay ka bixi kartaa inkastoo jiraan dumar waan gartay waxaa jira dumar mas-uuliyaddii ragga kaalintoodii galay oo iyagii gurigii u qidmeeya hadday ahaa leed biilkii carruurtii waxbarashadii sida badanaa jirto single motherta qurbaha joogta hooyada keligeed ilmaha korsatay iyo tii wadankii waa isku mid badanaa ilmaha soomaaliyeed waxaa koriya hooyo keligeed ah odayaashu waa inta korisa way yar tahay percentageku sidaad ogtahay zahra bal hal iyo laba iyaguna ku tuf wallaahi arrinta hooyooyinka single motherka hadda wadankii baaba naga daranba kuwo badan baa igala soo xiriiro wadankiiyo waxaaba maaragtay aad ba maaragtay dhib weyn waaye single mothernimadu anigu markaan runta kuu sheego single mothernimada hadda adigu ma ada dooran adigaas shukriya ilaahay baa kuu dooray sidaas ay tahay markaad ninkaaga haysatay oo kula shaqayn oo ku garab taagnaa iyo maantood keligaa tahay farqiga u dhexeeya cidna kaaga sheekayn mayso maaragtay nimcada waxaa la yidhi intaa lahaayo lama oga ma fahamtay laakiin maalintay kaa baxdaad og tahay anigu single mothernimada horta haddii aan qofka dhibaato ku kalifaysaa jirinin yaan la dooran baan dhihi lahaa oo waayo waa tacab aad dhib badan ilmahana uma fiicna oo maaragtay laakiin garaadka ilmaha hooyada ilmaha labada waalid wada korsadeen iyo ilmaha halka waalid korsaday physically iyo maskaxiyan isku garaad maba ah badan ma ahan oo waayo ilmahan had iyo jeer tabashuu qabaa ilmaha halka waalid korsaday isqaasatan hooyada xataa aabaha hadduu koriyo waa ilmo tabasho qabaa dhinac baa banaan reerkii mar walba dhinac baa banaan waxay dhahaan children without father they look like maxaan ku dhahaa house without roof yacnihii guri laga qaaday safiitada saqafka kore buu la mid yahay dhahaan bal hooyadina ka waran hooyadina waa udub dhaxaadkii reerkee hooyadii aabaha yaa isleedahay inuu maqnaadaa fiican soomaalida badanaa waxay dhahaan aabaha rol inuu maqnaado hooyadu way u dulqaad badan tahay way u gegsi ogtahay aabuhu iyo hooyadu hooyadaa gegsi badan ama waa adkaysi badan si kale daan u dhig horta waan arkay ilma aabayaal soo koriyeen oo runtii si fiican usoo koriyeen aabayaal soo koriyeen oo si fiican usoo koriyeen waxay ku xiran tahay waalidka maaragtay dhaqankiisay ku xiran tahay iyo siduu u dhaqmo bay ku xiran tahay ilmaha markaa hooyadu waa ka naxariis badan tahay waa nature naxariis badan tahay aabaha waa waxa labada jeer loo siiyey maaragtay marka dareenka ahaa saddexda jeer maya laba jeer iyo markii saddexaad baa aabaha layi marka dareenkeeda ayaa wuxuu yahay maaragtay waa kaga sareeya iyo dhibkay usoo martay oo ayadu waa rixim waaye iyadu hooyadu waa rixim waa nature zahra gunti iyo garaanudkii barnaamijkaasi gaarka ah maxaad ku daraysaa waqtigii gabagabanaga ah aniga waxaan ku darayaa in maaragtay soomaalida haddaan nahay aanu ku faanno ciddaan nahay nolosheennana aanu maaragtay anagu
aanu si fiican maaragta ugu mashquulo oo yani waa tahay sahra waxaan ka wadaa cid kasta barnaamijkan qayb kale ayaan qaban doonaa intaas ayaan Ah. ku hakenaynaa sahra hay waad mahadsan tahay adaan mudan hay barnaamijkii gaarka aanu ku eegeynay kursiga ubadka iyo weliba dadka qurbaha ka tegay oo wadanka lagu celiyo iyagoon xaaladooda la ogeyn iyo dadka aan wadanka u dhalanay wadanka iska gala waxay rabaan ka samayn kara barnaamijyadaasi ayaanu diiradda ku saaraynay anigii sahra diiri ayaan ahayn anigoo shukr xasan ayaa idila socodsiinay sharaf miidin waa kala socoteen mahadsanideen asxaabtii assalaamu calaykum waraxmatullah alleenhohi kuma bogsiiso amigu warwarka ma biyo halaacal wax kuma keene adduun hawli kama dhammaatee